السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودyaal halka aad naga daawanaysaan waa Tiglof Official. Haddaba barnaamijka maanta waxaan idinku soo gudbi doonaa xilmi gubaad waxyaabo ku saabsan iyadoo fankii isaga baxday qodobo fara badan oo aan halkaan ka sheegi doono ayaa ku daawan doontaan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe dhaho oo la soco waxyaabaha kale aan soo dhigi doono. Mahadsanid. xilmi gubaad fanaanadii laga daba dhacay kusoo shacbaxday sidii dayax 15aad waxa ay soo gabagabeysay heesii fawaaxishta ahaa ee uu alle uusan raaliga ka ahayn. waxayna gaartay xaramka iyadoo halkaasi kusoo cibaadaysatay. waxa ayna sheegtay in fankii ay isaga hartay. waxayna ka codsatay shacabka Soomaaliyeed in aysan dib u dhageysan heesaheedii kuwaasi oo aynu ka xusi karno cishada kaliya ku waayo ku caawi ag joogistaada iyo dareenka xad dhaafay xaggaaga u jeeda xareedka waraabi. fanaanadii hore ee xilmi gubaad waxaa dhowaan la aqal galay saygeedii lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Samow isagoona ka codsaday fanka inay iska dayso. midaasna waa ay suurtagashay oo fankii waa ay iska dhaaftay. wuxuu ka reebay fanka wuxuuna ugu yeeray towbada alle wayna hirgashay arrinka. sayga xilmi gubaad ayaa lagu xasuustaa in dowladda Soomaaliya in ay u maxkamadeysay eedo maasuq ah. kaligeed ma aha kuwa fanka isaga baxay. fanaanada xilmi gubaad sanadihii aynu soo dhaafnay waxaa fanka isaga hayaamay fanaaniin hore oo ahaa kuwii ugu dambeeyay Maxamed Bike, Cabdihani Xaashi, Xabeeb FJ oo dhammaantood fankii isaga howleelay. waa fanaanadii ugu dambeysay ee fanka isaga baxda saacadihii aynu soo dhaafnay. isbeddelka fanaanada waxaa mug weyn ka qaatay saygeeda Axmed Cabdullaahi Samow. sayga gubaad waxa uu xubin firfircoon ka yahay jaaliyadda Soomaalida ee waddankaasi Sweden. dad fara badan waxa ay ku barteen fagaaraha maamulka siyaasadeed waxa uuna la soo shaqeeyay xukuumadihii Xasan Sheekh iyo dowladdii Farmaajo. sidoo kale waxa uu soo noqday madaxa canshuuraha ee dekedda Muqdisho, balse ciidamada dowladda ayaa soo xiray 18 Agost 2008 isaga iyo xubno ka tirsan kastamka canshuuraha. waxaa lagu eedeeyay lunsasho lacageed waxaana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. racfaan uu qaatay awgeed waxa uu dib u helay xorriyadiisii. wariye dhammaantii xilmi gubaad fankii waa isaga baxday. hamigii iyo rajada ay leedahay Allah u rumeeyo ayaynu leenahay. daawade barnaamijkan haddii aad daawato fadlan subscribe dhaho. sidoo kale commentiga kasoo dhiibo like-tana nagu dhiirigeli. waan mahadsantahay.